السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارات سؤال هذا waxaan hadda dul maraynaa waxa la yiraahdo job interview conversation. Job interview waa markii aad shaqo raadinayso, shaqo aad codsato, shaqada shortlist lagu soo daro oo lagu soo waco imtixaankooda laga qaadayo. Wada sheekaysi ayaa la yiraahdaa job interview conversation. Marka meeshan waxaa wada sheekaysan la yiraahdo Mark in la yiraahdo John. Marka Mike Abdullah wuxuu yiri good morning John, I'm a Mark. Subax wanaagsan John, waxaan ahay Mike. John wuxuu yiri good morning, subax wanaagsan sidoo kale. Mike, how are you doing? Sidaa tahay? I'm doing fine, thank you. Ma fiicanahay, waad mahadsantahay. How was the traffic coming over here? Sidee uu noqday jaamka markaad inta imaanaysid jidka ciriirigiisu ahaa suuqa? John wuxuu yiri I'm so glad that the traffic was light this morning, no traffic jam and no accident. I'm so glad waxaan ugu faraxsanahay saa darteed the traffic ciriiriga was light this morning wuu fududaa subaxan, no traffic jam waxa la yiraahdo jam ciriiri ma jirin, and no accident wax shil ana ma dhicin. Mike baa hadla wuxuu yiri that's good, taas hada waa macnaha arrin fiican way, that's good. John taas inta hore marka waxay ahayd soo dhaweyntii iska wareysi. Marka wuxuu yiri let us start the interview, aan bilowno la sheekaysiga interviewga. Are you ready? Diyaar ma tahay? Mike wuxuu yiri yes I am, diyaar baan. Mike wuxuu yiri first of all warranty let me properly introduce myself. Aniga aan iska baro. I am the finance department manager. Waxaan ahay department finance lacagaha ninka u weyna managerka. As you know sababtana there is an open position ka banaan baa jiro oo ka banaan baa jiro in my department. Aniga wasaaradda department waxaa waaye waaxdeeda, and I need to fill this position. Waxaan rabaa inaan buuxiyo waaxdaas as soon as possible sida ugu dhaqsiyaha badan. John marka wuxuu yiri please tell me fadlan ii sheeg a little bit more of the position, wax ku saabsan positionkaas booskaas banaan. Mike wuxuu yiri it is an entry level position. Waxa waaye entry level position. The new employee will have to work closely with accounting department. Nik qofka soo galayo entry level position Soomaali waxa lagu dhamaa kasaa, laakiin entry level position waxa waaye waa position oo ka banaanaaday waaxda lana shaqeyn rabo. New employee will have to work closely with shaqaale cusubna wuxuu si dhow ula shaqeyn doonaa accounting department waaxda xisaabaadka. He will also have to deal with sidoo kalena wuxuu la macaamili doonaa with the bankiga on the daily basis, waxyaalaha maalinlaha ah oo bankiga iyo wasaaradda ka dhaxeeya. John marka wuxuu yiri what type of qualification do you require? Maxaad u baahan tahay qualification? Macnaha qofka lagu xiranayo qualification. Marka Mike wuxuu yiri I require, waxaan u baahanahay 4 year college degree. Waxaan u baahanahay 4 sano oo degree ah in finance, meesha finance-ka. So working experience will be helpful. Sidoo kale qof oo khibrad leh waa si fiican leh. John marka wuxuu yiri what kind of experience are you looking for? Khibrad nooc ayaad rabteen? Mike ayaa wuxuu yiri doing office work is good. Qof xafiis hore u soo maray way fiican tahay. However saa darteed since this is an entry level position I don't require a lot of experience. Maadaama uu yahay entry level position uma baahni wax khibrad u siweyn. I'm willing to, waxaan rajaynayaa to train inaan train gareeyo the new person qofka cusub. Marka shaqadan waxaa waaye wasaaradda qof laga soo qaado qofka lagu bedelanayo waa entry level waxa la soo galayo. That's great, taas waa arrin fiican. Mike baa hadla wuxuu John tell me a little bit about yourself, wax adiga ku saabsan. Marka wuxuu yiri about yourself. Marka John baa wuxuu yiri marka John
John wuxuu yiri I was student waxaan ahay arday at West Coast University jaamacad la yiraahdo and I just graduated waxaan dhameeyay with bachelor degree waan dhameeyay in finance xisaabaadka I have been working waxaan maaliyadda finance I have been working part time waxaan kasoo kale u shaqeynaya part time hal gelinle as a payroll clerk payroll waxaa la dadka meelaha lacagaha shaqaalaha laga xukumo dadka fadhiya sida xawaalada ama payroll la clerk baan ka joogay meeshaas for the last 2 years laba sano u dambeysay magaca what are you looking for in a job what are you looking for in a job what are you looking maxaa raadinaysay in a job shaqada John the job should help me see waxaa shaqada u raadsanaysa ama the job should help me see what finance is all about waxaan shaqada u raadinaya inay igu caawiso inaan ogaado waxa finance waxay ku saabsan tahay finance dan I have learned waxaan bartay a lot of finance wax ku saabsan theories at school sida and now haddana it is time waa waqtigii aniga to put them into practice macnaha waxa aan iskuul kusoo bartay hadda ayaa la joogaa inaan u bedelo qaab practical ah anything else wax kale ma haysaa wax kale John wuxuu yiri I also hope waxaan sidoo kale rajeynayaa that it will help me grow in my field anaa shaqadan finance aadam waxa u raadsanaysaa lagu dhahay what are you looking for in a job markuu ka soo hadlay wuxuu iskuulkan ku soo bartay waxaan ku saabsan maanta shaqadan waxaan rajeynayaa inaan waxaan soo bartay inaan hadda camal yar u bedelo marka John what are your strengths no John wuxuu yiri I am also hope waxaan rajeynayaa that it will help me inagu caawiso grow in my field sidoo kale inay meesha takhasuskayga inuu sii weynaan doono sii kori doono khibradeyda magaca what are your strengths maxaa waaye waxyaalaha adiga aad ku dheerayso strength-kaaga ana guulaha kugu gaarsiin why should I hear you maxaan sidoo kale ku dooranaynaa dad ku shaqaaleysan sababtan kugu shaqaaleysan maxay tahay John markuu wuxuu yiri I'm hard working waxa strength-kayga waxa waaye I'm hard working waxaan qabto dal badan hard working person and fast cleaner qof si fast cleaner waxa la yiraahdaa qof markii problem soo wajaho isla markii wax xal u helo waa la dhihi karaa si dadban fast cleaner waxa waaye English direct translation dilo bedelo okay sorry meesha waxa waaye fast cleaner waxa waaye qof dhaqso wax qaban okay John wuxuu yiri I am hard working person waxaan qof dadaal badan and fast cleaner qof dhaqso wax qaban karo qofka markii wax saal lagu sheego wax qaban karo macnaha dad training gelisin isla markii waxay igu ma adkaaneen maalmaha hore waan qaban ama I'm very eager to learn waxaan ah qof jecel inuu barto and I get along fine with people dadkana si fiican baan u dhaqmaa magaca okay yeah now let me ask you a few quick questions su'aalo yar waqti you don't mind working along hours do you ma u baahan inaad waqti badan shaqeyso Soomaa John no I don't can you handle pressure haddii cadaadis lagu saaro ma xallin kartaa cadaadis lagu saaro shaqada badan maanta lagu yiraahdo isbiris waxa laga rabaa ma ka soo bixi kartaa camal John markuu yiri yes I can awooda when I was going to school kan iskuulka aadi jiray I took quite few courses waxaan qaadan jiray courses dhowr xabo each semester kasta while working at least 20 hours ana sidoo kale meel kale ka shaqeynaya every week asbuuc kasta I handle waan xallin karaa that situation very well si fiican baan xaaladaas u xallin jiray marka shaqadiina waxa weeye meesha usul pressure ka anaa waa soo maray waxaan kale do you still have any question for me will su'aal kale ma ii haystaa buu yiri Mike John no I think waxaan u malayn I have a pretty good understanding and si fiican ka fahmo shaqada marka job I believe waxaan rumaysanahay that I can handle it with ease inaan si fudud u handle garan karo waxa xallin karo and I hope waxaan rajeynayaa to have the opportunity inaan helo fursad to work for you inaan ku adiga ku shaqeeyo Mike wuxuu yiri John nice meeting you kulanti wanaagsan thank you for coming waad ku mahadsantahay imaatankan John wuxuu yiri nice meeting you too kulanti wanaagsan sidoo kale thank you for seeing me adigana aragtay macnaha xafiiska uu qaabishay waad ku mahadsantahay
marka waa mahadsantihiin. Subxaan Allah.